maalin wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada xog ku saabsan isbarbardhig lagu sameeyay ciyaartoyda Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kulamada ugu horeeya fasal ciyaareedka cusub. hadalhaynta dunida kubadda cagta 10 sano ee soo dhaafay waxa haystay labada xidig ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kuwaas oo loo arkay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan jiilkooda kuwaas oo arursaday abaalmarin shakhsiyadeedka ugu sarreeya kubadda cagta kadib 9 sanadood oo ay ku xifaaltameen masraxa horyaalka La Liga haatan labada ciyaartooy waxay ku kala sugan yihiin laba horyaal oo kala duwan balse weli ma dhammaan in isbarbardhig lagu sameeyo bandhigyadooda garoomada kubadda cagta. kabtanka Portugal ayaa soo afjaray muddo 9 sanadood ah oo uu xirnaa maaliyadda Los Blancos wuxuuna 88 milyan oo lacagta pound-ka ku aaday kooxda Juventus waana horyaalkiisii afraad ee qaaradda Yurub maadaama uu horey uga soo xamaashay horyaalada Portugal, England iyo sidoo kale Spain. dhinaca kale Lionel Messi isna kama ciyaarin meel ka baxsan horyaalka La Liga iyo kooxdiisa Barcelona durbana wuxuu helay darajo aad u sarreysa maadaama uu noqday kabtanka koowaad ee kooxda kadib bixitaankii Andres Iniesta. si kastaba horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa bilowday fasal ciyaareedka cusub ee 2018-2019 waxaana isbarbardhig lagu sameeyay kulamada ugu horeeya labada xidig iyadoo Lionel Messi uu kulankiisa ugu horeeyay ka hortagay kooxda Deportivo Alaves halka Ronaldo uu ka hortagay kooxda kubadda cagta ee Cape Verde. inkastoo labada ciyaartoy ay guulo ku furteen fasalka cusub haddana Lionel Messi ayaa soo bandhigay waxqabad ka wanaagsan Ronaldo kadib markii uu noqday furaha guusha kooxdiisa. xidiga Argentine wuxuu kulankii Deportivo Alaves sameeyay wax cajiib ah maadaama uu dhaliyay 2 gool sidoo kalena taabtay kubadda in ka badan 100 jeer iyadoo ay taasi jirto ayuu haddana 9 baas 8 shoot 4 fursad abuur iyo 6 kubad jiidis oo dhameystiran sameeyay waana in ka badan xidiga ay xibaaltamaan. dhinaca kale Cristiano kulankiisa ugu horeeyay garoonka Bentagodi aad ayuu ugu dhibtooday wuxuuna kubadda baasay kaliya 3 jeer wax gool ah ma dhalin sidoo kalena wax caawinada ma sameyn waxa intaas u sii dheer inuu 8 kubadood ku tuuro goolka 4 ka midna ay goosha ku beegantay. Ronaldo kubad jiidis ma sameyn intii lagu jiray kulankii ka dhacay garoonka Bentagodi markaas oo ay kooxdiisa Juventus 3 gool iyo 2 kaga adkaatay nadiga Cape Verde kaliya 2 fursadood ayuu abuuray 90 daqiiqo ciyaarta halka uu kubadda taabtay kaliya 57 jeer. fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaaladeena soo aadan hana iloobin inaad like saarto comment ka bixiso asxaabtaadana la wadaagto mahadsanid.